dareen kala duwan ayaa dadweynaha reer Boorama ay ka bixiyeen salaadiinta kala duwan ee Somaliland ee iyagoo saxaafadda isku marinaya hadallada xanafta leh waxana waxgaradka salaadiinta iyo uqaashi kala duwan ee gobolkan Awdal ay ugu baaqeen kuwa bulshada kicinaya ee ku abuuraya calool xumada inay ka waantoobaan hadallada ka soo yeedhaya hoggaanka dhaqanka ee dalka Somaliland waxaana ay arintaasi ku tilmaameen mid ka baxsan hoggaanka dhaqanka calaamadihii lagu yaqaanay iyo astaantii ay lahaayeen waxayna sheegeen in salaadiinta iyo hoggaanka dhaqanka looga baahan yahay inay bulshada u horseedaan horumar waxqabad iyo sidii la isu garab taagi lahaa bulshada ay hoggaanka u hayaan salaadiintani miidiyaha isku marinaysa hadallada xanafta leh ee maaragta ay dhegtu nacayso ayaan doonayaa aragtidayda inaan yar ka celiyo waxaan leeyahay horta suldaannimadu waxay tahay hal la isweydiiyo suldaannimadu waxay tahay fikrad ahaan waxaan u qabaa ninka suldaanka yihi inuuna miidiya sharaftiisu ka weyn tahay baan u qabaa oo isaga xaqiraad ku tahay inuu miidiya hadalla xanaf leh oo dadka damqaya ama dadkaba de iska horkeenaya inuu ka hadlo nin suldaanaya wax waajibka suldaanka amaaha kulley anigu dhaqanka waxaan ku barannay oo nabad iyo xasilooni iyo taariikh inay waddankana ay soo dejiyeen ahayd hadalladan dambe iminka ay isku dhaafinayaan miidiyaha salaadiinta beesha Somaliland kulley waa wax aad iyo aad u xun oo bulshadana u danahayn waxaan ahay aqoon-yahanada gobolka Awdal intaanan arintaa gelin abwaankii weynaa ee la oran jiray Allah u naxariistay gaariye wuxuu yidhi dal waxaan ku noolahay saddexdii dalaaqood lagu furay dadnimadii dal waxaan ku noolahay runtii arag darayso daadihii la yidhi been hadday dunida ceer tahay loo dabeecad weeyaan dususkiya qiyaamadu waxaan leeyahay war odaya dhaqmeedku kaalin bay leeyihiin waa samawadayaal waxa weeye horta dhaqankoogii ha ku ekaadaan ninkasta meeshiisa inuu ku ekaado weeye الرحمن الرحيم anigoo professor Aljiye Juxul waxaan doonayaa maanta inaan naxariis awdal annaga midnimada Somaliland iyo midnimada iyo wadajirka Somaliland ayaan nagu filan oo aan hore u qaadanay maanta hadallada naxliga leh ee ku saabsan annagu haddaan reebilnahay jeegaan baan nahay iyo annagu haddaan reebilnahay wadan ilaan baan nahay ee xataa salaadiinta beesha dhexe ay ku hadaaqayaan dhallinyada iska badaayo ay salaadiintii waaweyn ku hadaaqayaan ma aha wax loo adkaysan karo hadalkaasi waa hadal aad loola yaabo aadna aan u xumaysannay salaadiintu halka ugu dambaysa ee marka dhiiggu isku beero halka u dambaysa maydhasay ahaan jireen inay iyagu wax kiciyaan oo wixii doorashadii xanafteedii ay sii adkeeyaan war wixii waan soo dhaafnay way dhammaatay waxa weeyaan dawladda cusub imiga carqalado in lagu kiciyo inay noo shaqayso dawladdu weeyaane in maaragtaa imiga wax kale lagu kiciyo ma aha waxaan ahay dadweynaha ku nool magaalada Boorama anu waxaan aaminsanahay suldaanku waxa weeyaan dhaqan wuxuu ka taliyaa laba qof oo arrimaha dhaqanka halkan ka warramaya in dalkan Somaliland uu baahan yahay nabad ummadda Somaliland waxa loo baahan yahay odayada dhaqameed hadday siyaasi tahay hadday wax garad tahay hadday aqoon-yahankoogiiba tahay in nabadda dhinac looga soo wada jeesto wanaagga iyo isku duubnaanta iyo nabaddana laga wada taliyo odayguna waa oday siyaasiga iyo odayaduna waxay ka mas'uul yihiin dadka nabaddooda xukuumadda ka mas'uula xumnahay in odayaashii dhaqanka ee loo inay hadallo noocaas iyo qaybin bulshada ay ka jeediyaan
miidiyaha taasoo aan looga baran dadkuna maanta taariikhda ay marayaan taariikhda Soomaaliland maraysana waxa jira colaado waxa jira dagaallo sokeeye waxa jira abaaro marka halkay dadka wax uga tir lahaayeen inay maanta ku noqdaan iyagu isku noqdaan oo jeegaan iyo waxaan aqoon baraan waan aad baan uga xunnahay waa Caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.